madaxweyne ku-xigeenka qaranka Soomaaliland oo maanta safar shaqo ku joogay magaalada Hibeed ee Berbera ayaa soo kormeeray mashaariicda mashruuca GPLG iyo dawladda hoose ay ka wadaan magaalada Hibeed ee Berbera kuwaas oo ay kamid ahaayeen dugsi cusub oo loo dhisay xaafadda magaalada xanaanada xaafadda Moscow sidoo kale waxay soo indhayeen terminal loogu talagalay gaadiidka shirkadaha socdaalka ee u kala goosha dalka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin oo xafiiskiisa ku qaabilay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu ka warbixiyay sida ay ugu fududaatay in ay intaas oo mashaariic dawladda hoose ee degmada Berbera ay hirgeliso sanadada labadii sano ee ina dhaafay sidoo kale waxa isagoo halkaasi hadal soo dhaweyn ka soo jeediyay gudoomiyaha gobolka Saaxil Injineer Axmed Cismaan Xasan waxaana kamid ah hadaladoodii gabadhaan qaadanaa iyaguna marka waxaanu influence ku sameeynaa waxaanu masaxnaa inay gaar u sheegtaan in anaga mashruucan gaar u qabanaa oo ka ilaalinaa haddii 1 kiiloomitir wadaan oo dhisayaan 2 kiiloomitir baan raacinaa waxaan aad ugu faraxsanahay midna madaxweyne ku xigeen in mashaariicdii sanad walba sidoodii loogu tala galo waliba waxaan jecelahay inaad u gudbiso maayrada kale iyo maxaan ku raahdaa degmooyinka kale waxaanu ka ilaalinay si caqabadaan u noqonin mashruucu aanu ka shaqeynaa waxa maalintii shaqada maalinla ah ama billa ah joogto loo helayo waxaan ku sadgaraynay dhaqaalaha dawladda hoose waxa sugi karaya dhismayaal ah ee sanadka gudihiisa sugi karaya in bisha 6aad soo dhacdo in bisha 7aad soo dhacdo in bisha 5aad soo dhacdo waxaan u deynay wixii ka imanaya hay'adaha laakiin wixii aan sugeen hadii laba macallin oo iskuul wada dhigay midna la yiraahdo UNICEF lacag ku siinaysa midna la yiraahdo degmada ku siinaysa labadaas ma wada joogi karaya mar mid mushaar ku soo dhacaya taa marka waxaan ka dhignay inaan la wada wareegno macallimiinta waxbarashada oo kale waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan ku faraxsanahay hadal badaniimo yaalo oo maanta oo dhammaan hadlaynay waxaan ku soo tusnay wixii aanu ku sharaxnay oo aan ku taabsiinay annaga xageeyga waxa laga yaqaanaa ka gobol ahaana aad baan soo dhaweynaynaa annaga laba degmo ayaa hawsha ku jiray waa Sheekh iyo Berbera sidaan filayo haddaan wax iga qaldanayn labada Sheekh waad arkayseen wixii u qornaa iyo shalay waxay qabteen soo bandhigeen oo lacagta la bixiyay ay sheegayeen ay kaba qiimo badneed iskuulkii Hundisa ku yaalay ee dhismihiisu dhamaadka ku dhawaa intuu leekaa dadkuna marka ay wax qabsadaan ayay fiican tahay in cidda kale wax la qabsato waxa isagoo hadalka soo afmeeray isla markaana u mahad celiyay mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera madaxweyne ku-xigeenka qaranka Soomaaliland waxaanu shaaciyay in dawladdu ay ku howlan tahay sidii ay u kala saari lahayd maayrada dalka Soomaaliland isla markaana ay ugu dhiirin gali lahayd sida ay u kala burciyo booramiyo Berbera lagu bilaabo runtiina qof wala sheegan inuu beetiisa wasiiradii koowaad ku dhiiratay ee fahamtay inuu maamul daadejinta qiimo badan leedahay culays uga dhacay wasiiradii waxbarashada hore Samsom Abdi Aadan oo maayir ku sheegay yani interministerial committee hore in maamul maartay aan jeergareyn jiray iyada iyo wasiirka maanta maaliyadda noqday oo bariga wasiir qorsheynta runtii yani labada wasiir ma jeering ama shaqada ugu badan ama shuruucda aan ku shaqeynay ku hagayno mashruucani laha ما كيس حد يقول وتجابيه ده حد يقول واصد قفة ترتميه يده جود هن 10 كي كان لو ذا مشروع عن وذا قد له سعودي ده لو خرف فينا كيما مدادجينا ولا خرف فينا مركا معناه ما بربرة نقالها بدل بوا اسمحيه الديود نقالها وحما ترى wax taraay waxa weeyaan wax xilkaas nimada iyo dadka oo de Nigeria oo Afrika ugu shidaal soo saar badan waxa ka maamul wanaaga yani la sameeyay boolka gaamo oo Rwanda ya example soo qaadata maaha macno marka dhaqaale baan tahay maaha inta wax ku maamula ilaa inuu wax siinay dadkeedu siiya Berbera dadkeedu siiyay farasiinkood dadkeedu ayuu siiyay waxa weeyaan ninka inta yar si fiican u maamula oo baa inta badan si wanaagsan u maamula laakiin qofka haddii inta yar si fiican u maamulin in badan maamul ma yidee ana waxaan qabaa maanta Soomaaliland magaalooyinka kale way ooyaan majority-oodu way ooyaan runtii Berbera mooyaane magaalooyinka kale maanta way ooyaan waxay ooyaan maayaro la mid ah saaxiibka
cabdishakuur maayro lamid oo ooyaan maayro wanaagsan bay u ooyaan waxa weeyaan waxaad tirahdeen shahaado sharaf la siiyo shahaado sharaf hore u qaatay sanadka koowaad buu ku qaatay shahaado sharaf guddigii wasiiradayd iyo hay-adihii ka shaqaynay JBLG ay u garteen inuu noqday degmadii u horreysay ee maaragtay sidii loogu talagalay iyo si ka badan baa maanta idin muuqanaysay ama maanta waxay wareegeenna iyo maaragtay iyo dabagalkeenna iyo maanta waxaan wareegayna waxay noqonaysaa 10 Soomaaliland kala baranaysa noqonaysa ilaa waa halkaasay ku hadalkeennii iyo wixii la istusayay halkaas laga arkayaa ninkii wax ku qaadan karaya maartay ilaa maartay wax ku yar wax ku duuliyay haduu wixii ka khaldan oo ka sax karaya wixii ka dhaan oo ku buuxsan karaya waxay dhanbe ka tahay markaa maanta socdaalkeenaas iyo degmooyinka kala duwan marayna 4 degmaan dhameynay 4 degmaan noo hadhay insha Allah 3 degme mid waa Hargeysa joogno iyadoo waa maalin baynu ku dhaqaaqaynaa labana waa Booramiya Hargeysa Booramiya Gebelo wandhay ma aynu tagi doonaa insha Allah intayna marka maalin ama 2 sano ee tagi doonaa marka waxa taayaratani dabagalkani 10 la kala barayno iyo noqonaysa oo ku kala faa'iideysanayaan dadweynuhuna ku fahmo maamul daadejinta iyo qarankan wuxuu wado iyo in la rabo in adeegyada qaranka Soomaaliland in loo dhaadhiciyo dawladaha hoose oo degmo walba ku canaanato dadka ay soo doorteen yaadar wax noo wanaajiyo hadii maamulka leeyihiin وعبد الرشيد مبارك عبدي عبد الرشيد سول جوب جوك TV بربرة